بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا أصحابي عاو حيدين هيا ماهيو صدح ليه وحلا يري صدح وحلا جسوا جاري وحسوا جاري أوياشين صدحنا وحسوا جاري عبياشين صدحنا وحسوا جاري إننا جسوا جاري أوياشين وحسوا جارين جر علم الله جيو حاله جيل وفي عينه إيو جورك أو جيان مرة abayaasheenna waxay soo gaareen gar odayaal loo geeyo xoolo uu u fiican yahay arigu iyo dumarka oo qurux loo raaco innaguna waxaan soo gaarnay gar haween loo geeyo xoolo oo ay u fiican tahay lacagtu iyo guurka oo geedkii ma ku yaal loo eego haddii aynu fiirno oo ku laabanno odayaasheenna hore awoyaalaha garta waxay u geyn jireen qof wax garab ah ay u geyn jireen xoolahana geela ugu qaalisanaa oo geela waxa way Soomaalidu aad bay u qadarin jireen guurkana waxa loo eegi jiray in ay haweenaydu tahay gabadha awaryaraheed iyo eedooyinkeen iyo adeeradeed iyo abtiyaasheed iyo la raaco oo haddii Ilaahay idankeeda leeyahay markaas ay ilmo wanaagsan hadhow ay markaa dhashaan oo waxa way karti leh aabayaasheenna sidoo kale xoolaha geelan la isku lan jiray iyo dhaqashada geela iyo uma ay badnayn laakiin waxay ka soo gaareen iyaguna arigu isagoo u fiican yahay oo neefkii sadaqada lahaa iyo kii martida loo qalayay iyo kii wax way dilay ku reeyay caanaha loo siinayo qolada kale iyo wax way dadku saasay ariga dhaqan jireen laakiin wiilashii geela raac jiray oo badnaay ma ay jirin dumarkana waxay ka eegi jireen quruxda oo cilmiga waagdan waxba laga bartay oo dadku waxbay barteen laakiin waagi hore guurka looma eegi jirin haddii Ilaahay ku reeyay haweenaydu ilmaha wax ma bari kartaa iyo waxa loo eegi jiray laakiin haweenay joog iyo jamaal leh oo qurux leh bay aabayaasheen raadin jireen tan soo maaha innaga laakiin godkeena waxaan oran karnaa baabiyo inuu ku garay Soomaalidu waxay tiraahdaa hebel godkiisa biyo u garay innaga ugu liidana sababtoo xoolana waxba